بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله. عشر كيلو وعشرة دوت ذا كتريسر كها وحامرنا ذا كتريسر كسيسكو أو 6.4.3.3 6.4.3.3 بامبرنا دولي راهدو إن شاء الله 3 object لقي لي هي هنا الرول information كتب الصحة configuration لكعشو الرول لكعشو الفرع تاقرايو متقانا configuration كأما دارتان كلا دارو بهالهان فورمانكا كبلا وينا روبكو كاغو ريسن ويه سي الاي نوت انتربه already باسورا كحرن باسورا كحرن انت نغو سيين waxay yiraahdeen halka waxa ku dhaxeen baasura ku xirana Cisco oo ah mutaqaana executive mode ah privilege mode oo ah iyo executive mode oo ah class ah marka baasura sagalina sala dhahayna okay baasura nagay class enter Cisco baasura ku horeysa enable dhahaysa enable then class galaysa then insha Allah hagelina configure terminal global configuration galayna insha Allah waxaan ku xirina doo liiraahdo waxaan ku xiri doonaa karwanka 0.0 gigabit ka ku xirina 192.168 ah iyo waxaan ku xirina 01 ah 192.168 hadda waxaan haysanaa tu'aala R54 baan haysanaa oo labada baasood aan gelinaa kor u kacday insha Allah hadda bilaawayna doonida okay interface int qor taabka taabo uu dhameystirayaa gi qor taabka taabo uu dhameystirayaa 0/0 enter ip address qoraysa ip address 192.168.10.1 subnetting waa iska 255.255.0 enter no shut okay hal mar buu noo kacay arki kartaa already waxaan helnay su'aala fariisanay 8 نسيين هنقلينا هدنا كي كان قلينا يشغل داد متقاربة عارو كو استقاشد في هولو كو سعين لايا عم عايز قلينا بسبب البوديس وقلنا قلين اكسن ده انت نقله هيدا نقو علي انترفيس قري كرنا جي كريكتن جي ينقرينا 0/1 اما سيدة رفضو تصايا جي اي قر تاب كتاب وكودا مسترايا 0/1 enter interface no IP address category IP address كم نقولنا 192.168.11.1 255.255.255.0 enter no shutdown ama no shut labada try good way enter okay halmaran boodlay 8 point kan nasiiyay halkaas waxaan 18 point ka helay halkaas waxaan u baahan hadda inaan end set gramkas copy qor run ru qor taabka taabo ku dhameystira running configuration start st taabo taabka taabso ku dhameystiraya copy running waxaan ku save gareynaa nv rampa ku save gareynaa you see good okay maxaan lagu soo gaasay 3 points ku helnay kan naga turo kala tuurnay r2 ga nagee let's go to r2 CLI okay Cisco kaad waxaan ku xiri doonaa hadduu alidaado waa router-ga waxaan ku xiri doonaa isna 00 iyo 01 waxay wataan IP address waxay wataan 10.1.1.1 iyo 10.1.2.1 okay loo weynee baadku loo geli
Cisco enable DL kaliya qoran kartaa enter class okay configure key good then waxaan ku xirsan hadduu la yiraahdo waxaa leenahay interface soo gaabsanayna okay int kaliya qoraynaa g noo qor slash g noo qor 0/0 soo wada gaabsanay labada dhinac waa loo qori karaa IP address ka qoraynaa address waxaan qornaa 10.1.1.1 what happened 0.1 space 255 0. Let's double check it. 10.1.2 not something. Okay. Enter for no shut down. No shut. Good. Okay. You can see now. Zero. Interface gig by 01. Then interface के लिए इसमें करना के लिए इधर तो कुछ चलेगा IP address के लिए welcome 10.1.2.1 welcome 255 that's 0. Let's double check it. Okay. Good. Enter there. No shut there. Good. I've got end there. Then I have to save green now. Okay, I have to save green now. So copy from start creating. Okay. What's the green? Let's have 54 out of 54. Alhamdulillah. 52 out of 54 waa helay 10 kalimaad halkaas lagu eegayay saa u jeegreen inaan waxaan sameeyay ee saxtayna waa tisgaray karnaa PC1 ayaa PC4 la hadashiinayna PC1 waxa waaye 10.1.2.10 okay inta taabsad loo weyne dadka taabsad haddii configuration no 10 sorry command prompt ping halkaas got 10.1.2.10 شيء pingin ولا هلايا كو لابو صدح soo diray afar wuxuu diray afartu dir saddex baa la helay mar labaad aan ku darno aan loo fadhiino inuu had afarta warqadood ay la diro in afar helo good marka casharkeeni waa ka inuu raacsan waxa ku ogaanaysaa xaabrada dhawaan hagaajinay all the way down oo saacdi karaan marka intaas lagu eegay casharkeeni maanta assalaamu calaykum